أصحابي كسر دوائر جنرال كيجا شعيب روي ما أنت وحيل جوجو موها بشير وكم عدير قرح كديجلي قرح كديجلي سودو صاحب walaalkayga waa ku dhawaa Shucayb adiga iyo asxaabtaadaba aad u mahadsan tahay مقعد عشان هرت إنه غير إنه قرح كديجلي موها والو لها ويلك بخرطوية ده مقعد بدنا على هذا nin walba dadkiisu wax ku yahay سفان dadkayga magacyada badan ila baxay qofba magaco ila baxa kulli aniga magacaan jeclahay waa magaca aniga waalidkayga ay bixiyeen Maxamed kaasaan jeclahay laakiin naanaysada waa magacii masiibo mar bay baxaan صح marka محمد عايش عشان إنه جوا أوكي ما شاء الله قرح كديجلي أن كلك فتمة تيك توك أجا مركل الجلو وحاسو بحيسو أديكو متقنا ما شاء الله كل إلاف ويلك بقرطوية ويلك سانا ويلك محاي مركب مكفتني كات هاي أمان تاس مسه بل إنه شيء نيو أمانتا إيجا ما أهان بقولكي بس عشان كفتن ووح أن أجيت كده مع سنة كوسمات وحاجر دلني رب بدنو نولش كدعي وحاجر قبل بدنو depression هاي stress هاي قناعة النفتي كلسوني دي النفط أي كجورتي مركي أركان مركي خوف نلشي سكو فرحسن اسكو قناعسن to brought himself نفتي سأمانة هاي وحيدري ما مركا صبر قرحونا ماشي كجسوا بحيو خوف كاني وفرحسن هاي هبي واي أديك فرحة دم حكود دي marka qofka bini aadanka question badan markuu naftiisa isweydiyo wuxuu bilaabaa marka life style-ka uu marka ku jiro inuu ka gudbo stage kale uu aado aad role model u noqoto marka waxa ujeedkan ka damacsanahay waxay tahay in dadka nolosha nacay ama kalsoonida ay ku yar tahay inaan dareensiyo marka life style-kooda inay wax ka bedelaan xilli waxay jirtay aad joogtay kay aad weyn koox wax ku soo gudbi jirteen inaad video wada duubtaan oo kale YouTube-kaaga koox ayaa ku duubi jirtay aad weyn waa soo baxday waxaad imaatay waddankan UK xillidan dambe waxaa la arkaa inaad kaliya aad soo dhigtid fiidiyoosha si fiican marka maxaa ku raaxaysataa wallahi aniga groupna waan ku raaxaystaa kelinimana waan ku raaxaystaa cause aniga bulshada dhaqankana waa ku fiicanahay keli dhaqankana waa ku fiicanahay wallahi aniga ma kala qaadi karo karto cause weli ma ii kala socmin si fiican ما شاء الله maadaama aad group horta aad ku duubi jirtay xilli Kenya oo aad group ugu soo caan baxday inaad fiidiyoosha ku soo saartaan si fiican haddii aan ku dhaho dadkii aad la soo shaqeeyay qof ka door oo kale ha وقت interview مر موقتها سؤال waxa ku jiray موقتها si fiican oo fahmay waa ku qasban tahay maanta qof ka door hadii lagu yiraahdo dadkii asxaabtaadii Kenya aad fiidiyoosha soo sameey jirteen yaa dooran lahayd wallahi asxaab badan oo caan ah aan isla soo shaqeynay oo aan la soo koobi karin kulligoodana wada jeclahay kalamana qaadi karo maadaama aad tiri barnaamijka anaa wada sifa hal qof aan u baahanahay haddaad tiri waxaan dhihi lahaa walaashayda Sucaad reerkeeda Allah u barakeeyo waa qof amaanteeda afkaan kusoo koobi karin maxaa ku dooratay shakhsiyadda qofka bini aadanka lagu doortaa waxay tahay saddex shay qof bini aadan marka dooranayso waxa lagu doortaa kow daacadnimada qofku markuu daacad yahay waxa afkaada ka soo baxay uu nugul yahay waxa marka qalbigiisa ku jirana banaankaad ka arkaysaa oo is like a mirror muraayada marka hor taagan tahay tan kalena aan ku ammaanayo waxay tahay howlkarnimada qofku markuu howlkar yahay wuxuu jecel yahay naftaada inuu horumariyo naftiisana aad horumarisid waana ku dhiirigelinaa eeda saad markaa dareemaysid in markaa faraxsan tahay ma sha Allah mid saddexaadna aan ku ammaanayna waxay tahay qof waqtiga markuu ilaalinayo waa time keeping ka aad ugu fiicneed iyadoo shaqeynaysa waxna baranaysa haddana timeka aad u ilaalin jirtay qofka markuu timeka ilaalinayo qalbigiisana qurxoon waa hadal aad u wanaagsan qurux ku dhigle dadka marka social media la isku arko si fiican haddana waxa dhacdo marmarka qaar in la waayo عشان wada socodkooda ama wada shaqeyntooda in la waayo si fiican ma waxaa jiro dadka si gooniyad u xiriiridid bal waxaan oo sheeg wallahi inta aniga wax isla duubno inaan xiriirinin male
waayo ruuxa markaad isla soo ceeshtaan ceeshkaad isla ceeshteen karaamuu kaa mudan yahay maasha allah dadka hal mar wada soo shaqayseen aniga qofka hal mar ila soo shaqeeya iyo qofka kun jeer ila soo shaqeeya waa isku mid sababtoo ah hadiyada ugu qaalisan qof bini aadan ku siin karo waqtigiisa waa qofku markuu timekiisa ku horo ixtiraamu kugu leeyahay marka kulli xiriirkiina waa fiican yahay maasha allah su-aal fani aan rabaa inaan ku weydiiyo dadka marka ay wax jeclaadaan dadna waa laga dareemaa dadna ma laga dareemo si fiican bal adigu noo sheeg qoladee ku jirtaa wallaahi aniga badanaa dadka waxaan ahay dhoola caddeynta wax ku qaray sababtoo ah qofka ma dareemayo inaad dhaawacan tahay mana dareemayo inaad murugaysantahay mar haddaad dhoola caddeynaysa sababta diiniyan loo leeyahay dhoola caddeynta waa sunno aniga waxaa laga yaabaa waqtiyada aan ugu murugsanahay inaan iska dhoola caddeeyo that means dadka waxaan ahay dhibaatadooda qaraya aabeyga jiraa wuxuu dhihi jiray maxamed intuu sheego inta u qarsoonaa badan yani intuu afka ka sheegayay inta u qarsoonaa badan that means waalidkii ku dhalay badii fahamkaada ku yaryahay waa qof aanan jeclayn marka dhibaatadiisa inuu dadka la sheer gareeyo waxaa fahamsanahay dhibaatadeyda anigna culays igu tahay qof walaalkeyga haddaan la sheer gareeyo dadka waxay ku leeyihin dhibaatada aad sheeganayso waa dad baa lagu nafisaa maya qofkii culays kusii ziyaadanay as long as adiga inaa xalisidaa wax wal wanaagsan marka dadka waxaan ahay aniga qarsada waxooda aada weyn su-aasha muhiim ay ahayd okay hadalba hadal u dhalaa mogt aada weyn adiga in lagu jeclaado ma jeceshahay mase inaa wax jeclaataa jecesha wallaahi aniga in la jeclaadaan jeclahay si fiican sababtoo ah waxaan dareemaa inaan wax ahay qofku markuu ku jecel yahay you realize at that moment quality-ga markaad leedahay ogaanaysaa laakiin marka adiga wax jeceshahay waxaa imaanaysa inay adiga kalsoonida kugu yartahay su-aalo badan ay isweydiinaya qofkaan adiga keligaa lee maa jecel inkastoo ay wanaagsatay horta in lais jeclaado labada qof ay isjecel yihiin laakiin waxaan jeclahay in lay jeclaado sababtoo aniga markii lay jeclaado waxaan ogaanaa qofkaan respect ina badan inuu yahay qalbigayga noloshayda wax walbo anigana wanaag aan jeclahay qofka waa la wadaagaa oo naga wada dhexaysa marka I like in lay jeclaadaan jeclahay maasha allah waddankan UK ay imaatay si fiican okay maato hadda habi maad ku tahay waddankan aad joogtid mase waxaa jiro waddan kale oo aad jeclaan lahayd inaad ku noolaatid aniga adduunka horta qofka bini aadanka shakhsiyadiisa ku xiran tahay for example wixii adiga markaa aad u aragtid wax qurxoon ayaa wax qurxoon noqda wixii aad mar walba aadan u arkin waxa inaysan qurxoonayn ama qurxoonaadaan qofka bini aadanka ana meesha uu mar walba hogaamisa waxay tahay qanaacada qofka si walba u taajir yahay qofku meel walba ku nool yahay hal sariir hal qol iyo hal musqul uu leeyahay iyo hal caday wax kale ma jiraan marka positionka aad ku nooshahay wax saameyn ma ahan kaliya waxaa saameynta ah qanaacada meeshaan joogo ku qanacsanahay alxamdulilah ilaahayna wuxuu dhahay daabad walbo dunida dusheeda saaran rasaqeeda anaa ballan qaaday marka ballanqaadkii ilaahay ba haddaa haysto meel ma kala qaadi kari dhul walbo ilaahay ii dooray oo ku qanacsanahay maxamedow koleeto nin qof qaangaarana waa tahay ma dhihi karno qorxogdhiila maanta xiriir sooma sameyn oo kale marka haddii aan sheekada hoos usoo gagaabino ma jiraa xiriir aad samaysay oo aad maanta aad dhihi karto waa ka shalayna oo kale wallaahi su-aashaas waa yara adag tahay kolley xiriir waa soo sameeyey waana su-aashaas waa markii ugu horeysay nolosheeda aan ka hadlahay si fiican way jirtaa xiriir aan soo sameeyo aan ka shalaynayo almost waxay eedaa umaleynaa I think 2000 adiga around 2017 kii meelaha
waayo nolol markaa aan ku jiray oo iska yara adkayd oo xaalad markaa aad u adag ahayd iyo qof aan islaa markaa lifestyle-ka aan markaa ku jirtid noloshaani garabaa kaga baahan tahay support oo aan markaa waayay marka xiriirkaan ka shalaynaa cause hope badan dream badanaa lahaa riyo badan oo qurxoonaa lahaa marka taa ayaan ka shalaynaya kastoo aan rabin inaan ku fogaado laakiin xilli markaa oo lifeka adkaa aqliyadeydana markaa waxaan ku dhiirigeliyaa waxay ahayd qofka bini aadanka ah xilliga mugdiga ah xitaa hooskiisa waa uu qarsoomaa marka qofka bini aadanka ahna sidaasoo kale haddaadba aaminsantahay in loo waayn karo there is no way marka aad shalay kale usoo gocoto marka taay ahayd marka wow su-aashaas ismaba dhihiinba maadaama aan sheekeysanayno kuma qasbanid horta su-aal walba inaad iga jawaabtid laakiin aadan kaaga mahad celinaa waxaan dareemi karnaa kolleyti intay daawanaysa qof aad qalbi wanaagsan inaad tahay qalbigiisuna uu furan yahay wax u qarsanna aysan jirinoo anigaan kaftankaaga inuu daacadkaa yahay hadda dareemaynaa qurux ku dhigle kolleyd qof caanaa tahay baraha bulshada meelo badanaad ku jirtaa maadaama caan aad tahay kolleyd waxaan kaasoo qaadaynaa dadka caanka ah inaad su-aashan u matashid dadkiinan caanka ah dhibaato noocee ah aan is dhihi karnaa ayaa kala kulantiin xiriirada adiga markaad iska hadlaysid dadka caanka oo kale waa la mid tahay waayo social media iskula jirnaa dhibaatada dadka caanka haysta waxaa waaye tusaale oo kale markuu nin yahay way adag tahay gabar inuu easy ku helo gabar hadday tahayna for example gabar hadday tahay way adag tahay nin inay easily ku hesho wiil hadduu yahayna way adag tahay inuu gabar easily ku helo sababtoo ah gabar walbo aad la sheekaysta ama gabar walbo kusoo xiriirisa waxay aaminsan tahay mentality ahaan maadaama 1 milyan ama 2 milyan ama 5 milyan ay kugu xiran tahay naaga badan inay ku daba ordayaan oo ku jecel yihiin marka waxay ku leedahay abo aniga waqti ay igu dhumin naaga badan oo ku daba ordooy player ku aragtaa marka ina player tahay wafaad marka gabar kugu dhiirinayso way yar tahay gabdhii waxaa yaraatay kalsoonidii dadka caanka ay ku qabeen cause numberkay arkayaan laakiin hal qalbi inuu leeyahay ma aaminsana qofka 1 milyan markay aragtay waxay ku leedahay gabdho badanaa wadaa available maanin gabadhana daanyeero badanaa wadaa marka dadkii caanka dooqa ka lobay cause way adag tahay marka easily gabar inay helaan dadka caanka social media ku jiro markasta waxaan ka maqlaa kelmad ah markii guur wada la weydiiyo ama xiriir la weydiiyo waxay dhahaan ma jeclin qof dumar ah oo social media ku jiro raggu inaysan jeclayn dumarka social media ku jiro sabab maxaa keenay kartaa horta su'aashaada haddaan usoo gudbo dadka social media ku jira horta dad qaar waxaa jira aaminsan dadka caanka ah inaysan nolol la wadaagin dad qaarna waxay aaminsan yihiin qof walba aniga horta calafka aaminsanahay calafkana maalmuhu waa isku mid balse dhacdooyinkii ku kala duwan yihiin oo qofka la kulmaysid adiga ma ogid ilaaha dooray laakiin adoo social media ku jiro in public intaa la soo istaagtid aad dhaadid qof social media ku jiro taybkayga ma ahan badanaa gabdhaha adeegsada waxay ku leeyihiin qof social media ku jiro aniga nin social media ku jira ninba ma u aqaan oo adiga maxaa tahay marka wiilkan wuxuu ku leeyahay gabar social media ku jiro aniga dooqayga ma aha oo adiga maxaa tahay marka adiga waxaa adduunka ugu itaal daran ruuxa meeshuu ku nool yahay wasakh ka aamina ma fahanta shakhsiyadda bini aadanka ma aha marka mid liidid ku habboon waayo si walba dadaalkaada u yaryahay mirihiisu ma noqdo eber waayo dad badanaa kuugu xiran adiga marka aniga waxaa aaminsanahay nolosha inaysan dooq lahayn oo qofka marka aad la kulmaysa inkastoo qofka aanan social media ku jira uu ka busy yar yahay
mashquulkiisa yar that's why dadka qaarna u doortaan qofkaan social media ku jirin waayo qofka markuu social media ku jiro mashquulkiisa maro muuqaal duu maro wax edit gareeyo maro wax sameeyo busy waay laakiin qofkaani adaa social media u ah that's why dadka qaar u door bidaan laakiin adiga ahaan ha maxamed bashiir ahaan si fiican yaa door bida lahayd ani dooq mali iyo gabar aan ku jirin ani dooq mali haye kabtan haylaan gashaa wax dhibo kuma qabo social media maadaama aan ku jiro waxaad aaminsan tahay maadaama aan ku jiro meeshaan ku jiro ma caynayo waa xuntaa ma dhigi kari qofkii wali jiro wax dhibo kuma qabo laakiin aniga qofka social media waxaan rabaa bas aniga qofka markuu social media ku jiro inuusan ahaanin sidii social media dadka ay ku barteen waayo waxaa dhaqan xumo ah adoo qof dumar ah marwo ah sharfoon ah ina social media ka dhex daansi garaysa waa in xishood uu ku soo galaa life style-kaada sidii ahaa waa ina iska bedeshaa adiga nin ah sidii shalay nacnacdii ah social media maalaayacdiga mararka qaar gelaysa waa in limitkaada adigana uu soo galaa waa stageka ah u gudubta markaa inuu yaraadaa ana taa aaminsanahay waayo adoo gabar dhanoo marwo ah in social media soo istaagta kaamirada shidatay jawi kale iska gashid waa fadeexa waaye sax taas waa isleeyahay si fiican waxaan rabaa inaan hal su-aal muhiim aan ku weydiiyo inaan ka tagano maraba su-aashaas adowe social mediaha inta aadan soo gelin before iyo after xilligan hadda aad ku jirtid nolosha kee xasilooni aad ku dareemaysaa sidii kartaa wallahi aniga before social media xasilooni ku dareemay cause before social media ma arkayso qof maala yacni adiga ku aflagaadee ma arkayso qof cibaado raadiyay ma arkayso qof adoon waxba ka galabsan waalidkaada comment ku caay cause life-kaada waa adiga iyo noloshaada oo kaliya laakiin hadda social media wuxuu noqday qayb ka mid ah noloshaada social media qayb ka mid ah noloshaada markay noqotona waa adoo miino ku fariistay oo kale waa wax walba ka filaysaa ewel wirwir ma ugu haynin nolosheeda laakiin hadda nolosha social media stresskeeda badan waxaa is leedahay kalsoonidii kaa guureyso oo is leedahay qofkan marka waayo markay aragtay qof maanta qofkan lasoo qarxiyay kan lasoo qarxiyay marka qaar waxaa is leedahay adiga naftirka lagugu soo maqan yahay haddana waxaa arkaysaa qof adan waxba u dhimin waa iska kaa nacbanahay ku dhahay maxaa igu nacday weligaa wax ma ka galabsanin weligaa wax ma dhihin waa ku nacbanahay maxaa igu nacday waa iska kaa dhex arkino qofka commentiga wuxuu isku qodaa roland maxaa kaa qaldan afka xishoodka iyo xigmadda iyo karaamadii aawe he just want attention in markaa ay dadka arkaan ma fahant laakiin saameynta uu qofka walaalkiisa iyo waalidkiisa u geysanaya ma oga hadda waddanka UK ay joogtaa maxaa ku qorshaysan inaad ka baxdo inaad Kenya ku noqoto oo kale inaad waddan kale aado inaad halkaas iyo Mareykanka aado ma laga yaabaa inaad Yurub u dalxiiso Scandinavian-ka ma laga yaabaa qorshaaga maxay yahay wallahi horta nolosha balaan la'aan qorshe la'aan ma qorxoona qofka bini'aadankana intuu nool yahay waa inuu leeyahay wax la dhahay strategic plan qorshe inuu leeyahay haddaadan qorshe lahayn that means macna ma leed dhadhanka kugu yar plan A B ilaa C qofka bini'aadanka inuu leeyahay aniga horta qorsheyga safar ma ahan cause hadda qorsheyga waxaa waaye focus about study inaan waxbarashada xoogga saaro oo qorsheyga ugu weyn waaye ilaa heer jaamacadeed aan rabaa cause qofka bini'aadanka wax suuray waa aqoonta waaye qofka markuusan aqoon lahayn waa qof indhala oo kale alxamdulillah waxaa soo bartay ilaa xad ilaa heer jaamacad intay dhiman inaan dhammaystirto waa plaankeyga koowaad oo social media limitkiisana aan soo yareeyo taa waay marka qurux ku dhigi leh weli waxaan ku jirnaa aan su'aalayna social media iyo family-ka waayo Soomaalideena social media aad waxyaabo aad u badan as dhex socdo wax saxan iyo wax qalad ah qaas ahaan haddii aan ku weydiiyo maadaama aad social media ku jirtid dadka marka ay isqabaan oo xaas ay kusoo galaan social media waxaa la arkaa haddana ayaan ka bacday inay kala tagaan markay kala tagaan at the same time
qabitaankoodina waa la ogaay furitaankoodina waa la ogaanaa si fiican marka haddana waxaa sii dheer oo dhacdo in fiidiyaashii hore loo wada sameeyey aada u weyn oo private la wada geliyo marka arrinkaas maxaa ku leeyahay waxyaabaha noocaas oo kale waxaa sababaya qofka biniaadanka inay kalsoonida ka guurto qofka biniaadanka markay kalsoonida ka guurto wuxuu u malaynaya wax walba inuu ku nafisayo adiga video aad private gelisid maxay micno kusoo gelinaya nin aad waqti ku qaadateen qol nin aad live banaanka ku wada qaadateen nin guurkiina dhana la wada ogaa qof cawradiina aad wadaagteen maxay ka dhibaysaa video aad private gelisid ma ahan qofku waa in stageka nolosha markaa ka gudbaa nolol kale u gudbaa boqolkiiba boqolna waxaa sameynaya privateada videoyada gelinaya dumarka u badan waayo qofka dumarka ah markay ninka guursato markaasay jaceylkeedu sii ziyaadaa halka ragga markay guursadaan xiisooda soo yaraada waa iska degaan ha kos mas-uuliyadda ku badan qofka markuu gabadha hantiyo jaceylkiisa decrease ku dhacay kos responsibility aad u badana koraysa halka gabadha ay leedahay ninkaana isguursateene jaceylkeeda uu sii ziyaadahay marka problemka intaas waay gabadhii waxay fahmi laadahay ninkaana responsibility inuu busy ku yahay asagana wuxuu fahmi lahayaa gabadhaani saan kugu soo waalanayso da'miinis waxay isleedahay ninkaada xajiso sax jaceyl ma aha maseer waxaani ma ilaah u kala abuuro dumarka emotion si fiican waa emotional oo emotionka arsan rag markii looba barray way ka badan yihiin aada weyn marka ninkii gabadhii iyadoo jaceyl ayuu markaa furaa asaga wuxuu arkaa inay culeys ku tahay maseer dhibaato ku wado ninkiina asagoo responsibility iyo nolosheeda suu ku dhisi lahaa u dagaalamaya gabadhii waxaa laga yaabaa inuu ka xiisa dhacayna u malayso that's why marka in la kala tago in private la geliyo laakiin wax micno ay kusoo kordhisanid عشان waxaa ma qurxana videoation private kala gelina wax micno ma sameynayso ma aananta adig taasan ka qaadanayna xasuusa buray waraabe salahan mas'uuliyad kartaa ma ya qof hadda xiriir sameeyeen video iska duubteen social media geliseen waa iska dayday xiriir kala sameysatay qofkaas kale xiriirka alla sameysato waa qalad ma dhigi karnaa in uu ku weydiiyo filaashadii hore ka bixi oo kale gabadha badana bostri gabdhaha sameey gabadha waa inay dhiirigelin ka qaadaa ninkaani balaayada iska dhigaya ninkaani ku furay suu kugu dilaysnaa shalay feeri ya suu kugu nacamleynaya feeri siduu kugu dhigay feeri shakhsiyadan daciifka ah maad ka sii daba cararaysa waa in gabadha markaa nafteeda ay ku dhiirigelisaa laakiin private ay gelisay waa jeceshahay فيديو waxa private gelis wali still jacayl kugu dambe waa ka sabray laada qof private video gelina hada aragto waa qof wax jacayl rag aad ama dumar aad still jacayl ku dambe course stage uu qofkii video ku dul tago private geli xasab still sidii qofkii markaa ka filay uu ka waay waa jacayl qaraarahay marka intaas nafis arka laakiin ma nafisa waa dhimana dhigle baa ka jiro dalo kullu tani qosol loo ataa wato ay qoslisaa aniga barnaamijka serious ka dhigaa rabaa marka niyo aad u maasata qoraka dhigle mar labaad mar saddexaad maadaama aad ka soo qayb gashay broadcastiga ma sha Allah aad u sheeko badan qosol badan tahay real life kaaga dadka iyo waxay u maleeyaan social media inay kala duwan tahay laakiin ma kala duwan to be honest sida hadda uu qosliyo u shaacireynay hadda aan kugu jeedo aan videoyashaadan ay yihiin marka aad ugu maasantahay mar labaad iyo mar saddexaad maxaa leedahay asxaabta waxaan leeyahay channel-kani waxa ka noqonin marti wiilkani Shucayb waa wiil ma sha Allah broadcast-yada iyo barnaamijyada aad u qurxoon sameeya soo dhaweeya channel-ka loo istaajiyo subscribe-tana haka dareema broadcast-iga asxaabta intaan video ku soo gabagabeynayna waxaan kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo mac salaama